بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada saaka barnaamijka aridii kugu haynana waxa kamida Israa'iil oo Mareykanka ku qalqaalinaysa in la joogo xilligii la weerari lahaa nuclear-ka Iran iyadoo maanta wadahadal xasaasi ah ay ku yeelanayaan magaalada Roma xubno ka tirsan maamulka Netanyahu iyo ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe Stephen Witkoff Iran waxay si adag uga digtay qalad Israa'iil ay gasho iyadoo sheegaysa in Mareykanku mas'uul ka noqon doono weerar lagu qaado xarumaheeda nuclear-ka wararkii ugu dambeeyay ee Gaza ayaan sidoo kale barnaamijkeedii kugu haynaa iyo sida xaaladdu ay tahay saaka Hamas oo soo saartay war culus oo la xiriira arrimaha gargaarka iyo qorshaha Israa'iil ay ku sheegayso in lagu qaybinayo gargaarka loogu talagalay dadka reer Gaza Hindiya ayaa ku dhawaaqday tilaabo soo celin karta dagaalkii Pakistan ay la gashay horaantii bishan xilli Pakistan ay soo jeedisay dalka ku haboon in uu martigeliyo wadahadalo ay yeeshaan Islamabad iyo New Delhi Netanyahu oo ay ka hortimid mucaaradad adag oo ku aadan magacaabista madaxa laanta sirdoonka Shin Bet ee xalay uu magacaabay iyadoo ay socdaan dadaalo lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Ukraine oo socotay 4 sano ayaa waxaynu eegaynaa 4 sabab oo lagu sheegay in Putin uusan doonayn in dagaalka lagu soo gabagabeeyo dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii war ah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rugcadaa ah kana soo shaqaynayay hawlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta wixii faahfaahin ah oo inta dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda soo dhawaada markala daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka sidoo kale saakay qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan Koongareeska waddanka Mareykanka oo ku talinaya Mareyka Gaza nuclear in lagu dhufto laakiin saaka waxaynu ku bilaabaynaa xiisada ka dhaxaloosan Pakistan iyo Hindiya iyadoo wadahadallo la doonayo inay dhexmaraan xukuumadaha Islamabad iyo New Delhi si loo soo afjaro colaadii dhacday horaantii bishan isla markaasna Pakistan ay soo jeedisay war cusub oo ku aadan in ay diyaar u tahay wadahadal ayaa dawladda Hindiya waxay qaaday xaaladda tilaabo uga sii daraysa haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan gaar ahaan hadal ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha waddankaasi Hindiya Narendra Modi isagoo hadlayay habeennimadii xalay ayaa waxa uu sheegay in Pakistan aysan heli doonin biyaha ka yimaada wabiyada Hindiya ay u leedahay xaqa isticmaalka kadib xabajoojintii laga gaaray dagaal 4 maalin socday oo dhex maray labadan wadan ee dariska ee ku hubaysan hubka wax gumaada ee nuclear-ka waxaana la sheegayaa dagaaladaas inay ka dhasheen weerarkii dhimashada sababay ee ka dhacay gobolka Kashmir qaybta Hindiya ay maamusho halkaasi oo lagu dilay 26 qof oo Hindu ah isagoo ka hadlayay munaasabad dadweynaha uu kula hadlayay Modi waxa uu yiri Pakistan waxay u kici doontaa qiimo culus oo ku aadan weerar kasta oo argagixiso si la mid ah ciidamada iyo dhaqaalaha Pakistanna waxay la kulmi doonaan qasaare joojinta heshiiska biyaha webiga Indus oo bangiga adduunka u dhexdhexaadiyay labada wadan sanadkii 1960kii ayaa waxa la sheegayaa in Pakistan ay ku tilmaamtay tilaabo caynkaasi haddii ay qaado xukuumadda Hindiya ku dhawaaqis dagaal
maadaama biyaha ka yimaada webiyadaasi ay ku xiran yihiin dhulbeereedka gobolka Punjab iyo deegaano kale oo ka tirsan waddanka Pakistan. Arrintaasi oo la sheegayo in Pakistan ay u aragto xadgudub weyn oo lagu samaynayo heshiiska. Waa tahay haddaba iyadoo hadalkaasi xaaladda uga sii daraya oo ka soo yeerayo ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya ayaa Pakistan waxaa ka soo yeeray hadal kale oo kaas ka duwan. ra'iisul wasaaraha waddankaasi Shahbaz Sharif ayaa waxa uu ka shaqeeyay in uu rajaynayo in wadahadallada dhici doona lagu qabto waddanka Sacuudiga si labada wadan ay iskugu yimaadaan isla markaasna uga wada hadlaan xaaladda dagaalka sababtay iyo khilaafaadka taagan. waxaan uu sheegay in Sacuudigu uu ku habboon yahay martigelinta wadahadalladaasi. warbixin amuurahani ku aadan waxaa soo jeedinaya wariyaha iyaga Yaxya Ciise. ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sheegay in boqortooyada Sacuudi Carabiya ay noqon karto meel dhexdhexaad ah oo lagu qabto wadahadallada u dhaxeeya dalkiisa iyo Hindiya, kuwaas oo looga hadlayo arrimo xasaasi ah sida xaaladda Kashmir, biyaha, ganacsiga iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo arrimo kale oo laga yaabo inay fursad cusub u noqdaan xiriirka muddada dheer xumaa ee u dhaxeeya labada dal ee ku hubeysan hubka nukliyeerka. Sharif ayaa sidaasi ku sheegay kulan albaabada u xiran yihiin oo uu la yeeshay koox warbaahin ah oo ka dhacay guriga ra'iisul wasaaraha sida uu qoray wargeyska Dawn ee Pakistan. waxa uu meesha ka saaray in Shiinuhu uu noqdo meel ku habboon wadahadalladaasi. waxa uu tilmaamay in xiisadda u dhaxaysa labada dal ay hoos u dhacday kadib markii ay xiriir toos ah uu dhex maray agaasimayaasha howlgallada militari ee labada dhinac, taasi oo fursad u abuurtay dib inay u bilowdaan wadahadallada. waxa uu sidoo kale sheegay in la taliyaha amniga qaranka ee Pakistan uu hogaamin doono wafdiga dalkiisa haddii wadahadallada la isku fahmo. inkastoo India ay si gaar ah uga walacsan tahay argagixisada, ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa adkeeyay in ajendaha wadahadalka marka la eego dhinaca Islaamabad uu isku mar ka koobnaado arrimaha Kashmir, biyaha, ganacsiga iyo argagixisada halkii mid looga hadli lahaa. dalacsiinta taliyaha. dhinaca kale, arrinta muranka badan dhalisay ee ku saabsan dalacsiinta taliyaha ciidamada General Asim Munir oo loo dalacsiiyey darajada Field Marshal ama shan xidigle, Sharif waxa uu xaqiijiyay in go'aankaas uu yahay mid uu si shakhsi ahaan u gaaray. si kastaba ha ahaatee, waxa uu cadeeyay inuu la tashaday hogaamiyaha xisbiga BMLN Nawaz Sharif kahor inta uusan go'aankaas gaarin. markasta waxaan la tashadaa Nawaz Sharif kahor inta aanan go'aan muhiim ah gaarin. taasina waxa ay sidoo kale ta dhacday marka aan go'aansanay dalacsiintiisa General Asim Munir, ayuu yiri. xiisadda ayaa kor u kacday kadib weerar dhimasho badan sababay bishii Abriil oo ka dhacay gudaha Kashmir, qaybta ee maamusha Hindiya, kaasi oo lagu dilay 26 qofood. Hindiya ayaa ku eedeysay Pakistan in ay taageertay kooxda weerarkaas fulisay, taasi oo noqotay weerarkii ugu dhimashada badnaa ee lagu qaaday dad rayid ah oo ku nool Kashmir tan iyo 10 sano. Pakistan waxa ay si cad u beenisay inay ku lug lahayd weerarkaas. intii u dhaxaysay 6 ilaa 10 bishii May, caalamku waxa uu ku baraarugay iyadoo Pakistan iyo Hindiya ay halis ugu jiraan dagaal cusub, waxaana la sheegay inuu ahaa khilaafkii militari ee ugu halista badnaa tan iyo sanadkii 1999. laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 10 May ku dhawaaqay in xabad joojin la gaaray, taasi oo ilaa hadda u muuqata mid shaqeynaysa sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP. Yaxya Ciise, HBN Online TV. waa hagaag Yaxya, aad buu mahadsan yahay. wixii warar ah ee ku soo kordha arrimahaasina barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii aan la idmo. haatan aynu qoraansanno colaadda waddanka Ukraine. iyadoo colaaddaasi ay socoto sanadkii afaraad ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu xusul duub ugu jiraa sidii lagu soo afjari lahaa colaaddaasi oo ay ku dhinteen kumanayaal kun oo qof oo labada dhinac ah. saacadihii la soo dhaafay weerar xagga cirka ayay iswadaarsadeen ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka. waxaana Ruushka uu sheegay inuu ka hortagay weerar xagga cirka oo Ukraine ku soo qaaday magaalada caasimadda ee Moscow. haddaba waxaynu eegaynaa warbixin ku saabsan maxay yihiin 4 qodob ee la aaminsan yahay in Putin uusan ku doonayn in dagaalka uu joojiyo. warbixintaasi oo nin khabiir ah oo ka hadlaya aan diblomaasi waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga Nimca Cabdikariin Timacade. iyadoo la eegayo isbedelada dhawaan dhacay iyo wadahadallada qadka taleefanka ku dhex maray hogaamiyaasha Mareykanka iyo Ruushka
safiirkii hore ee Ingiriiska u fadhiyay Kiev Simon Ethmes ayaa waxa uu xaqiijiyay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu og yahay in Donald Trump uu ka niyajabayo wada hadallada xabad joojinta taasina ay fursad u siinayso in uu sii wado dagaalka. Simon Ethmes oo la hadlayay wargeyska iPaper ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan 4 sababood oo waaweyn kuwaasi oo uu Putin wali ugu dhagan yahay mowqifkiisa. sababta koowaad Putin waxa uu rumaysan yahay in waqtiga iyo tasiilaadka oo dhan ay isaga u dhan yihiin. Smith ayaa tilmaamay in sababta ugu weyn ee Putin uga cagajiidayo wada hadallo nabadeed oo dhab ah ay tahay in uu wali rumaysan yahay inuu hayo tasiilaadkii uu ku wadi lahaa dagaalka isla markaana uu waqtiga uu la jiro. Smith waxa uu intaasi ku daray in Putin ay u badan tahay in uu rumaysan yahay in Trump uusan diyaar u ahayn in uu saad kale oo weyn ugu deeqo Ukraine sidoo kalena laga yaabo inuusan aaminsanayn in Europe iyo wadamada kale ay buuxin karaan booskaasi iyadoo 5 meelood meel Ukraine uu Ruushku haysto. Putin waxa uu rumaysan yahay in uu wali haysto fursad wanaagsan oo guul ah tadii uu sii wado istiraatiijiyadiisa ah in uu si tartiib ah u hormaro. sababta labaad Trump waxa uu door bidayaa Putin halkii uu ka dooran lahaa Zelensky. Smith waxa uu aaminsan yahay in Putin uu fursad u helay inuu ogaado sida uu Trump u arko xaaladda isla markaana uu shakisan yahay oo u malaynayo in Putin sabab fiican uu haysto in uu rumaysan yahay in Trump uu la dhacsan yahay isaga in ka badan Zelensky isaga oo tixraacaya madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky sida uu sheegay safiirka hore ee UK ee Ukraine. kulankii foosha xumaa ee Trump iyo Zelensky ku dhex maray aqalka cad waxa uu muujinayaa waxyaabo badan oo ay ku jirto in Trump wali uu ka xun yahay Zelensky maadaama uu san la shaqeyn sanadkii 2019 ama muddaxileedkiisii hore. Putin ayaa yiri Trump waa nuuca dadka uu la dhacsan yahay waxaana Smith uu sheegay taasi inay ka dhigayso Putin inuu rumaysan yahay in madaxweynaha Mareykanka uu aad ugu fiicnaan doono arrimaha Ruushka. sababta saddexaad ee hortaagan in la gaaro xabad joojin rasmi ah ayuu ku tilmaamay Simon Ethmes inay tahay Putin oo diyaar u ah inuu qatar geliyo cunaqabataynta Mareykanka. Smith waxa uu sheegay in Putin uu qatar gelinayo xiriirka Trump sababtoo ah waxa uu rumaysan yahay in Trump uusan sii wadi doonin qorshayaasha lagu laban laabayo cunaqabataynta saaran Ruushka taasi oo u noqon lahayd war aad u xun Moscow. inkastoo hogaamiyaasha reer galbeedka ay dalbanayaan cunaqabatayn cusub oo la saaro Ruushka, Trump waxa uu sheegay in Mareykanku uusan weligiis diyaar u ahayn inuu qayb ka noqdo dadaalada cunaqabataynta ee Yurub. Smith waxa uu aaminsan yahay in Putin uusan Trump u arag qof si dhab ah u daneynayo cunaqabataynta cusub sidoo kalena uusan filayn in Trump uu si aad ah uga xanaaqi doono Ruushka. sababta afraad oo ah tan ugu dambaysa Putin waxa uu filayaa in Trump uu caajiso ama uu daalo. safiirkii hore ee Ingiriiska waxa uu arkaa weerarada sii socda ee Ruushka ee Ukraine inkastoo ay jiraan wada hadallo nabadeed oo suurtagal ah inay yihiin fariin uu Putin u diray Trump taasi oo ah waa inaad fahantaa in miiska wada hadalka aan fadhiyo aysan iiga macno ahayn in aan joojiyo dagaalka. Putin waxa uu rajaynayaa inuu dib u dhigo wada hadallada ilaa Trump uu ka daalo oo uu ku dhawaaqo inuu yiraahdo waan ka daalay arrintan waan isku dayay Mareykankuna dan gooni ah kagama xirna markaa waan ka baxaynaa halkan. natiijadan waxay u fiican tahay Putin sababtoo ah ma rumaysna inay jirto cid kale oo buuxin karta kaalinta uu Mareykanku banaynayo haddii Trump uu ka laabto dadaalada nabadeed ee colaadda Ukraine. Nimcati Macade, HBN Online TV. وهاجاك نوع aad u mahadsan tahay daawadayaal goordhow waxaan u gudbi doonaa qaybta labaad ee barnaamijka oo aan idinku hayno wararkii ugu dambeeyay ee Gaza. xildhibaan ka tirsan Koongareeska waddanka Mareykanka oo leh Mareyka Gaza waa in bam nuclear lagu dhuftaa si lamida dagaalkii labaad ee adduunka markii Mareykanku uu ku duqeeyay dagaalooyin ku yaala waddankaasi Japan bambaanooyinka nuclearka waana meesha kaliya ee adduunka hubkaasi wax gumaadaha lagu dhuftay. imika wuxuu leeyahay markaas go'doonsan ee 19 bilood duqeynta lagu hayay waa in lagu dhuftaa bam nuclear. sheekadaas iyo waliba warbixino kale oo ku saabsan Israa'iil ku qalqaalinaysa Mareykanka in la weeraro nuclearka Iran iyo qodobo kale ayaan eegi doonaa laakiin aynu ku hakanno qadar xayeysiina. ku soo dhawow shirkadda dhismaha casriga ah ee Golden Country Apartments
daaxaadda waaftoo dibadaha maraysay hadda soo deg meeshii dalxiis ku ahaan lay qalbiguna ku degila daartaas ifayso dadku wada jeclaadeen mardocdaada ka carbuuno shirkadda dhismaha guryaha ee Golden Country Apartments waxa ay Nairobi kugu diyaarisay dhismo casri ah oo hadda shaqada lagu wado kaasoo ka kooban dhammaan adeegyada xaafad casri ah looga baahnaa lacagta 24 bilood ayaad ku bixin kartaa haddii aad doonto waa 2 qol 3 qol iyo 4 qol iyo qolka shaqaalaha waxaana uu ku yaalaa xaafadda South Sea wadada Mohoho Avenue kala xiriir ciwaanada iyo adreeska kale ee shaashada kaaga muuqda soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com soo dhawaada mar kale daawadayaal wari waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan jimcaha toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter ama X iyo weliba barta Telegram-ka warbixino qoraal ah waxaa loo yiri macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka xagga Gaza aynu ku bilowno saaka waa subax kale oo duqeymo culus Israa'iil ay wado waxaana la sheegayaa ilaa iyo xalay galkii dambe Israa'iil duqeymaha inay xoojisay shalay dad ka badan 70 qof ayaa lagu dilay saakana waxa laga soo warinayaa qaybo kamid ah marayka Gaza duqeymo caynkaasi oo kala in Israa'iil ay wado Israa'iil waxay ku andacoonaysaa inay ogolaatay gargaarka inuu u gudbo marayka Gaza laakiin ururka Hamas ayaa xalay wuxuu soo saaray bayaan aad u adag oo ku aadan xaaladdan waxaana la sheegay Israa'iil meelaha ay doonayso in ay ku sheegayso waxay ku qaybinaysaa gargaarka in ay noqdaan meel kaabab ah oo dadka lagu hayo ama xerooyin dadka lagu hayo haddaba ururka Hamas ayaa waxa la sheegayaa in uu dalbanayo in la sameeyo marin bini'aadantinimo oo joogto ah oo suurto geliya gargaar la taaban karo inuu soo gaaro shacabka Gaza iyadoo sidoo kale ku baaqaya in si buuxda loo joojiyo in markaasi cunaqabataynta Israa'iil ay saartay marka Gaza la joojiyo Hamas waxay dalbanaysaa in la helo wado gargaarku uu soo galo oo aan la xirin xilli kasta Hamas waxay kaloo sheegtay in xaaladda bini'aadantinimo ee Gaza ay sii xumaanayso maalinta ka dambaysa iyadoo ay jiraan dadaalo lagu xakameynayo gaajada waxaana lagu sheegay taas in ay ka hor imaanayso sida hadalka loo yiri guumaysiga qorshaha uu wado oo ah dadka reer Gaza in gaajo iyo silic lagu dilo waxaana markaasi Hamas bayaankan ay ku sheegtay in hadda gargaarka Israa'iil ay ogolaatay saacadihi la soo dhaafay in uu la macno yahay dhibic biyo ah oo badda lagu tuuray ama badda lagu shubay waxaana la sheegayaa taas inay ka macno tahay oo kale 100% gargaarka loo baahan yahay in uu yahay gargaarka haatan Israa'iil ogolaatay waxaana Hamas sidoo kale ay ku baaqaysaa in la helo qorshayaal degdeg ah oo lagu dhisayo wadooyin ay soo maraan gargaarku waxa la yiri Israa'iil waxay dhisaysaa xeryo xabsi ah oo ku yaala koonfurta Gaza iyadoo ku tilmaamaysa in gargaar lagu qaybinayo laakiin taas waxay sheegeen inay tahay khiyaano qorshahaasina waxay sheegeen inuu yahay xabsi la doonayo in dadka la geliyo waxaana ay tilmaameen inay gebi ahaanba ka soo horjeedaan qorshaha Israa'iil ay ku damacsan tahay inay gaajo dadka ku disho Hamas waxay kaloo sheegtay in xaaladdu ay tahay mid aad u xun loona baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto waa tahay qodobkaas halkaas aynu ku dhaafno xalay waxaan idin soo gudbinay war degdeg ah oo ku saabsan Netanyahu oo ku dhawaaqay magacaabista taliyaha cusub ama madaxa cusub ee laanta sirdoonka Israa'iil ee Shin Bet haddaba arrintaas waxaa la sheegayaa mucaarado xooggan in Israa'iil ka haysato saacadihii la soo dhaafay warbaahinta Israa'iil waxay sheegaysaa in xitaa taliyaha ciidamada ama abaanduulaha ciidamada Israa'iil Eyal Zamir uu si weyn uga soo horjeestay magacaabista la magacaabay taliyahan cusub waxaana markaasi la sheegayaa in aan lagala tashan dhinaca kale haweeneyda ah xeeralyaha guud ayaa waxa ay sheegtay in Netanyahu magacaabistan uu magacaabay madaxa cusub ee Shin Bet ay tahay mid ka hor imaanaysa qawaaniinta waxaana qaali Bahrav Maria war ay soo saartay ay ku sheegtay in
shalay go'aan ay soo saartay maxkamadda kaasi oo ahaa in xilka qaadistii Ron Paul ay ahayd mid qaanuunka ka baxsan haatanna waxay sheegtay magacaabista inay tahay mid qaanuunka liddi ku ah arrintan waxaa sidoo kale ka hadlay Yair Lapid oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka Israa'iil waxaana ku baaqay ninka la magacaabay abaduulaha ama madaxa laanta sirdoonka Shin Bet David Zine in uu diido xilkaasi loo magacaabay oo uu markaasi ku gacan sayro dhinaca kale gudaha Israa'iil xalay banaanbaxyo balaaran ayaa ka dhacay waxaa la sheegayaa booliiska iyo banaanbaxayaashu inay isku dhaceen arrintaasi ayaa waxaa la sheegayaa in ay timid kadib markii banaanbaxayaashu ay ka hor yimaadeen magacaabista madaxa cusub ee laanta sirdoonka Shin Bet waxaana la sheegayaa magaalada Tel Aviv booliiska iyo banaanbaxayaashu in ay rabsho halkaasi ku dhex martay inta ayna ka bixin haddaba wararka Gaza warbaahinta waxaa saacadihii lasoo dhaafay qabsaday hadal uu jeediyey xubin ka tirsan aqalka koongareeska waddanka Mareykanka ninkan wuxuu leeyahay Mareykanka Gaza waa in lagu dhuftaa bam nuclear haddaba aynu eegna warbixintaasi oo falcelin weyn ay ka dhalatay xildhibaan Randy Fine oo laga soo doorto gobolka Florida kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Trump ayaa ku baaqay in Gaza lagu dhufto hubka nuclearka isagoo hadalkan ka jeediyey xilli waraysi uu siinayay telefishinka Fox News ee laga leeyahay waddanka Mareykanka wuxuu yiri xaqiiqadu waxay tahay in sababta Falastiiniintu u dagaalamayaan ay tahay mid sharci ah isagoo ka falcelinaya dilka laba shaqaalaha oo ka tirsan safaaradda Israa'iil Washington oo lagu toogtay kadanka hore ee madxafka Yuhuudda ee ku yaal Washington ayaa waxa uu intaasi ku daray hadalkiisa xildhibaankani dhamaadka kaliya ee colaadda Gaza waa in si buuxda oo shuruud la'aan ah ay isku dhiibaan dhammaan kuwa taageersan waa sida hadalku yiri argagixisada muslimiinta hadalkiisa oo si ambaqaadaya wuxuu yiri dagaalkii labaad ee adduunka kama aanan wada xaajoon isdhiibid naazigii Jarmalka iyo reer Japan waxaan laba jeer ku dhufanay hubka nuclearka si ay isku dhiibaan reer Japan tani waa in halkan ay ka dhacdaa sidoo kale dhaqan ahaan waxaa jira arrin qoto dheer oo qaldan oo halkaas ka jirta oo la jeedo Mareykanka Gaza wuxuu yiri waa in la jabiyaa gabi ahaanba hadalkan ayaa waxa uu kiciyay dood iyo falcelin xooggan maadaama uu xambaarsan yahay baaq dagaal iyo nacayb diimeed iyadoo la adeegsanayo tusaale dagaal oo taariikhi ah si loo gaaro guul dagaalkan ka dhanka Mareykanka Gaza waxaana lagu soo waramayaa ururka u dooda arrimaha muslimiinta ee waddanka Mareykanka ee Kair loo yaqaan inay dalbanayaan in si degdeg ah loola xisaabtamo mudanahan ka tirsan aqalka koongareeska ee waddanka Mareykanka arrimahan falcelinta kale oo ka timid waxaa ka mid ah waxaan idin soo gudbinay wararkii ugu dambeeyay habeen hore in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si xun ugu qaadqaaday xilli aqalka cad uu ku sugnaa oo ku qaabilayay madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika isagoo leh Koonfur Afrika waxa ka socda gumaad lagu hayo dadka beeraleyda ee cadaanka ah xilligaas dabcan waa la socotay intii la socotay Trump wuxuu u shiday madaxweynaha Koonfur Afrika muuqaal hogaamiyaal ka tirsan xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta Koonfur Afrika oo hadallo nacayb ah oo liddi ku ah dadka cadaanka oo waddankaasi Koonfur Afrika muddo dheer ka talinayay oo midabta koor iyo faquuq ka waday in beerahooda xoog looga qaato haddaba marka waxa leeyahay Trump xilligaasi wuxuu ku doodayay hogaamiyaasha reer Koonfur Afrika ee dadka madow ah hadallada ay sheegayaan inay tahay hadallo u baahan in la isla xisaabtamo oo nimankaasi ku dhawaaqaya iyo haweenkaas ku dhawaaqaya hadallada lidiga ku ah dadka cadaanka la xisaabtamo dadku marka waxay leeyihiin 24 saac kadib mudane ka tirsan koongareeska Mareykanka oo waliba ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa wuxuu leeyahay waa in Mareykanka Gaza nuclear lagu dhuftaa marka laba wajiilnimaas maxay tahay baa leeyahay Trump markuu leeyahay waa in la xisaabtama siyaasiyiinta Koonfur Afrika oo jeedinaya hadallada nacaybka ah isaga uma jeeda baa la yiri kuwa xisbigiisa ka tirsan muuqaalkan hadda aad arkaysaan oo muuqaalkii loo shiday habeen hore madaxweynaha Koonfur Afrika
ninka ka muuqda waa Malema waa nin kamid ah siyaasiyiinta ka dhisan xisbiyada ka dhisan waddankaasi Koonfur Afrika oo leh cadaanku beeraheena bay hore u qaateen oo inaan ka soo dhacsanaa beeraheena hadalladaas Trump wuxuu ka dhigay inay hadalla u muuqda gumaad maxaa la yeeli doonaa marka ninkan maxaa laga yeeli doonaa waa calaamad su'aal waxaa laga sugayaa baa leeyahay hay'adaha Mareykanka ila ninkan wuxuu isticmaalay nacayb eray diin buu isticmaalay muslimiin buu yiri argagixiso isticmaalay dagaalkii labaad adduunka soo qaatay naazigii Jarmalku soo qaatay doodaasaa socota marka baraha bulshada iyo warbaahinta hadalkan wuxuu dhaliyay dood aad u adag xitaa gudaha Israa'iil dood ka dhaliyay oo arki doonaa wixii ku soo kordha waa hagaag wararka iyaga ugu dambeeyay 48 saac la soo dhaafay waxaan aad uga hadlaynay macluumaad la helay oo sheegaya Israa'iil inay diyaarinayso duulaan military inay ku qaado Iran gaar ahaan xarumaha nuclear-ka haddaba maanta waxaa lagu wadaa magaalada Rooba inay kulan ku yeeshaan wufuud ka socota Mareykanka iyo Iran inkastoo Iran wali aysan si rasmi u cadeyn wadahadallada inay ka qayb gali doonto iyo in kale laakiin loo badin inay ka qayb gasho laakiin inta wadahadallada socdaan waxa barbar socda wadahadallo kale ama shir duceed shirkan wuxuu dhex mari doonaa madaxa laanta sirdoonka Israa'iil ee Mossad David Bane iyo wasiirka istiraatiijiyadda ee Israa'iil Ron Dermer iyo wakiilka madaxweynaha Mareykanka ee arrimaha bariga dhexe Stephen Witkoff haddaba aynu eegno warar arrimahan ay warbaahinta Mareykanka ka qorayso waxaa la sheegayaa wasiirka istiraatiijiyadda ee Israa'iil Ron Dermer iyo madaxa hay'adda sirdoonka ee Mossad David Bane in maanta kulan magaalada Roma ay kula yeelan doonaan ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe Stephen Witkoff waxaana la sheegayaa inay ku wargelinayaan fursadaha la haysta ee ku aadan in la weeraro xarumaha nuclear-ka ee Iran shabakada wararka Axios ee laga leeyahay Mareykanka oo warkan baahisay ayaa waxay sheegtay in Israa'iil ay aaminsan tahay in hadda ay jirto fursad lagu weerari karo Iran taas oo meesha ka bixi karta haddii aan laga faa'iideysan ama weerarkaasi aan la qaadin xubnahan ayaa waxaa la sheegayaa in ay doonayaan inay ka raadiyaan maamulka Mareykanka inuu ku raaco qorshaha la xiriira tilaabo military oo ka dhan ah Iran si meesha looga saaro qatarta nuclear-ka ee Iran shabakada Axios waxa ay warbixintan ay baahisay ay ku sheegtay in Mareykanka uu aad walaac uga qabo dhaqdhaqaaqa Israa'iil ay wado ee ay ku doonayso in ay weerar ku qaado Iran xitaa ay suurtagal tahay in weerarkaasi ay qaado Israa'iil iyadoo Mareykanka xitaa aan ku soo wargelin laakiin qubarada waxay leeyihiin Israa'iil kuma dhacdo kaligeed inay weerarto Iran haddii ay isku daydo Iran waxay sheegtay 2,000 oo gantaal inay u diyaarsan yihiin hadda ka hor kowdii bisha Oktoobar 180 gantaal baa lagu dhuftay Israa'iil saldhigyaa la burburiyay gaar ahaan saldhigga Nevatim oo markii dambe dayax gacmeedka lagu arkay burburka soo gaaray hadda Iran waxay leedahay 2,000 oo gantaal baa noo diyaarsan Israa'iil dhulka la goynina bay ku leeyihiin sida ay sheegayso warbaahinta Iran laakiin waxa leeyahay Mareykanka ayay doonaysaa Israa'iil inay dagaalka soo geliso Iran xalay way hadashay barnaamijka waxaan kugu soo gudbinay qomanaha waxa hadlay afayeen u hadlay ciidanka ilaalada kacaanka Iran wuxuu yiri jawaab dhagaha faraha la gashado ayaan bixin doonaa haddii Iran ay la soo weeraro xarumaheeda nuclear-ka xaaladdu marka meel adag maraysaa waynu arki doonaa wixii ku soo kordhay arrimahaas haddii ay wax ku soo kordhaan barnaamijka wararka maanta oo goordhow soo geli doona ayaan idinkugu soo gudbin doonaa ama saacada kadib haddii alla idmo haddaba dhacdooyinkan iyo xiisadahan iyo wararkan taagan meesha aad ka heli karto wararka xaqiiqda ah xilliga ay dhacayaan iyo sida ay u dhacayaan waa HBN Online TV haddii aad ku xiran tahay oo aad ka mid tahay 510,000 ee qof ee ku xiran qaybta YouTube-ka waad ku mahadsan tahay waxna kuma seegin go'aan saxna waad qaadatay haddii aadan hore ugu xirnayna fadlan ku soo biir oo hel wararka joogtada ah ee hubantida ah isla markaasna degdeg ah oo saacada ay dhacayaan xilliga ay dhacayaan iyo goorta ay ka dhacayaan goobtaasi aan idin soo gudbinayna aad baad ugu mahadsantihiin mar kale daawashada barnaamijka inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada wararka waana mahadsantihiin mar kale jimco wanaagsan nabadgelyo shirkadda dhismaha guryaha ee fiqi iyo dabaqa daylight fooq aad u dheeroo farta haatan laga jarayo oo meel fiyaala ah fiqi ay ka taagtaan farta kuugu fiiqaye ila fiiri nuurka iyo fiyooraha iftiinka leh waa dabaqa daylight ee shirkadda fiqi ay farta haatan ka qaaday iyo fursad aad u qaaliya
shirkadda dhisidda iyo iibka guryaha ee fiqi ayaa idinla diyaara guri ku habboon nasashada iyo raaxada. dabaqa casriga ee daylight oo ka kooban 8 bayaano ayaa lagugu hayaa guri waasac ah oo VIP standard ah, kaasoo ka mid ah guryo si gaar ah loogu diyaariyey dadka madaxda ah iyo dadka kale ee doonaya inay Nairobi ka helaan guri u qalma oo ay aad ugu raaxaysan karaan. gurigu waxa uu ka kooban yahay 6 qol oo waaweyn iyo 2 qol oo yaryar iyo 3 jiko. waana guri aad u waasac ah oo dhul weyn laga dhisay, lehna wiishu gaar ah, loona dhisay qaab gaar u ah guryaha VIP-da oo loo sameeyey habka guryaha casriga loogu talagalay ee iftiiminta. waxaana uu ku dhex yaallaa dabaqa casriga ah ee Daylight xaafadda Backlandis. faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonada shashada kaaga muuqda.